بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن سوق هذا الدونا هل كان سوق هذا الدونا هل كان قبل لعب الدونا دي له هذا 10 لحريرة إن أوامرته هي النواهي القرآن كسو أرورتي إن وحن أدورت أرنتاس وحويان وحن ogahay in ummadda islaamku waxyaabo fara badan ay isaga dhex yaacsan tahay oo dhib fara badan oo jiro runtii aan la garanaynba waxyaabaha aas-aaska u ah diinta islaamka wax walba waxay leeyihiin aasaasay leeyihiin aasaasku hadduu kaa qaldamana waxba ku hagaagi maayaan waxyaabahaasan arkay oo khaladaad fara badan oo meelahaas ka jiraan arkay malihii dadkan ugu cilmi badan rasuul ilaahay soo dira maahi laakiin muhiim weeyaan allah quraanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu jalla shaanuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كو قرية كتابك إلهي وحكو جري بيناتك يذكر الله تلقلي كواس إلهي ونعضله نعضل جوكتا يا كسوت عدوا بروح نعضل شان ونعضل شان إلا كو توبت كيني وهجاجي أو وحي قريان شيء كواس إلهي وكتوبة أقبله مركا arrimahaas muhiim weeyaan runtii aad ay muhiim yihiin halis u yihiin waxaan arkay oo ii xaqiiqowday boqolkiiba boqol in ummadda islaamka ay isaga yaaqday total isaga yaaqday aysan aqoonin maxaa koowa maxaa labaa maxaa bilaawa maxaa maba naqaanba waa iska ha yaacdo firdidi masaajidka la isku buuranaya masaajidka salaadii waa tukanaya ummadda islaamku salaada number 1 siyaamka number 2 xajka number 3 zakada allahu aclam أعماشي ووينيدو كريتو يعجيب كهيد ورسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما بكون جرت بقى عم بكون جرت بتوس توتال ماشي كبحلم إن دي جالس كبرنايستي محيها تخيانة دي كشكي لالوشكي بين إلا الشيء وإن وحلق لقلضو إن وحلس كده بوريجي سيحون لو فكروا ده بعد حمو لقان حمو وحس كنوت وحس مباح حس كنوت وحن دين تبكون جرنيس كنوت على كل حال waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhegeystow in weydiiyo qof alla qofka uu kalsooni badan tahay allah quraanka wuxuu nagu leeyahay inna akramakum cinda allahi atqaakum qofka idinkugu sharaf badan waa qofka idinkugu taqwada badan weeyaan weydiiyo qofka uu kalsooni badan tahay sheekh dhe ama saaxiib dhe waxa rabta dheh ii sheeg dhe taqwo maxaa la yiraahdaa anigu waxaan rabaa inaan taqi noqdo sababtoo ilaahay agtiisa sharaf weyn aan ka helaan rabaa hadduu kuu sheego taqwo wax wanaagsan laakiin hadduu garan waayo ama uu galo ogow in wax badan qaldan yihiin wax fara badan ayaa qaldan marka intaas weydiiyaan ku dhihi lahaa intaad sii wadin casharkan aan bilaaba markaad ilaahay yidhaahdo waxaa jirta in rasuul walbo ilaahay soo diro subxaanahu jalla wacala waxaa lala soo diraa 18 arrimood ilaahay wuxuu la soo diray rasuusha dhammaantood 18 arrimood مع مينك وجدد قوين تارجت قوين ugu dambeeya 18 arrimood weeyaan 10 arrimood oo laga reebay dadka in la yimaadaan iyo 8 arrimood oo la rabo in la yimaadaan weliga ma maqashay ma hubo inaad maqashay 8 arrimood oo ilaahay uu na amray oo amarka waxa weeyaan kow number 1 taqwa ka taqwa in allaha yuhibbu almuttaqin ku sheegi doona taqwa waxay tahay laba waxa ka ihsaan إن الله يحب المحسنين إلهي وجعل يا محسنين صدح وحكا قصدي أما عدالة إن الله يحب المقصدين إلهي وجعل يكون مقصدين تا توبة أفركاء قفك إنه توبة كيرو ترى سار الشدى الله أيا شنكاء قفك إنه إلهي ترى سارته إنه صبره أيا لح إنه الضهارة قاته وقفك الضهارة يستوه إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين أيا تضباه safka ilaahay inuu ku dagaalamo oo uu maxayaato noqdo qof aan muran badnayn oo dood badnayn markii ummaddu ay dagaalamayso xilliga dagaalka oo kaleeto in allah yuhibbu alladhina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus inuu noqdo dhisma la isku dhisay oo kaleeto saas la isugu xiray oo kaleeto markay dagaalamayaan muuminiintu islaamku inay noqdaan oo isla shaqeeyaan oo la iska ilaasho waxyaabaha xanafta leh khilaafaadka
sideedaas arrimood ilahay wuu jecel yahay. waxaan nidhi taqwo, ixsaan, maxay ahayd cadli ama qasdi, tawbo, tawakul, sabur iyo dahaaro iyo muran la'aan iyo macnaha daacadnimo in lagu maxay ahayd lagu wada shaqeeyo. 10 arrimoodna ilahay wuu neceb yahay. 10ka arrimood maxay yihiin? kufri ilahay wuu neceb yahay. kufri biaayaat illaah, allah lagu kufriyo, aayaadkiisa lagu kufriyo, waxaas ilahay wuu neceb yahay subxaanahu jalla wacala. in laa yuxibbu alkaafiriin. qaybta labaad ilahay uu neceb yahay waxaa weeyaan dulm. ilahay ma jecla dulm. ilahay waa neceb yahay. fasaad sidoo kaleeto ilahay wuu neceb yahay. 3 weeyaan. maxay ahaato ii sheegeen khaa'iniinta ilahay wuu neceb yahay. in laa yuxibbu alkhaa'iniin, ilahay ma jecla. maxay ahaato israafka ilahay wuu neceb yahay. kuwa musrifiinta in almusrifiina hum asxaabu nnaar. in allaha laa yuxibbu almusrifiin, innahu laa yuxibbu almusrifiin. maxay ahaato ictidaaga. in allaha laa yuxibbu almuctadiin, innahu laa yuxibbu almuctadiin, ilahay ma jecla. maxay ahaato dabo waxaa la yidhaahdo ithmi waxaa la yidhaahdo ithmigaas, ithmi kan ugu weyn waa kufriga, shirkiga weeyaan. ithmigan ilahay ma jecla subxaanahu jalla wacala. waa 8. maxay ahaato ilahay ma jecla mukhtaal fakhuur ah. mukhtaal fakhuur, mukhtaal iyo fakhuur ilahay ma jecla. kibirkana ilahay ma jecla. 10kaas shay ilahay wuu neceb yahay. bal fiiri, weligaa ma maqashay, noloshaada ma lagu sharaxay? aaska diinta islaamku 18kaas shay weeyaan. bal diin walba oo ilahay soo diray noocaasay ahayd. idan aan kuu bilaabo taqwo ayaan ku bilaabay. taqwo maxay tahay? simbal. taqwo waxaad akhrinaysaa suura baqara aayadda 171. laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albira man aamana billah. bal waxaa soo gelaya waxyaabo fara badan oo ka mid ah waxyaabii hadda aan soo tirinay oo samirka uu ka mid yahay. maxay ahaato ii sheegeen sabarka iyo shayga kale muxuu ahaa shay kalena oo ku jira taqway noqonayaan, taqwaday soo gelayaan. qofku inuu sabir leeyahay, maxay ahaato ii sheegeen waxay soo gelaysaa maxay ahaato ii sheegeen acmaal saalixaaday soo gelaysaa ama taqway soo gelaysaa. marka taqwada aayaddaasaa sharaxaysa 100%. waa xoola inaad bixisaa, ilahay inaad rumayso, maalinta qiyaama aad rumayso, malaa'igta aad rumayso, kutubta aad rumayso, nebiyada aad rumayso, sadaqa aad bixiso. maxay ahaato adoo jecel sadaqada, waata almaala calaa xubbihi dawi lqurba walyataama walmasaakiin, dadkaas aad quudiso, macnaha sadaqa booli inaad noqoto, qof sadaqada bixiya aad noqoto. maxay ahaato ii sheeg maxay ahaato ii sheegeen inaad maxay ahaato rumayso, inaad salaada tukato, inaad maxay ahaato zakada bixido. zakada iyo sadaqadu waa isku sadaqo, laakiin haddana way kala duwan yihiin. midna waa waajib, midna waajib maahan. bal labaduba waa isku darajo weeyaan. weliba sadaqada aan waajibka ahaynu subxaana allah caadi maahan marnaba. waxyaabaha ugu faraha badan ee qur-aanka kusoo arooray markii magaca ilahay laga soo tagana waa nafaqada weeyaan. sadaqada magaca ilaahay markii laga soo tago waxa laba ka noqonaya sadaqada weeyaan kitaabka ilahay dhexdiisa. sadaqada bixiya, zakada bixiya, maxay ahaato sabra, dhibaatada ku sabra, ballantana oofiya. walmawfuuna bicahdihim idaa caahaduu wasaabiriina fi lba'saa'i waddaraa'i waxiina alba'si ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum almuttaquun ayuu ilahay leeyahay. idan halkaasay ku sugan tahay taqwo waxay tahay. suura baqara suuradda 2 ee qur-aanka aayadda 171. waa inaad ilahay rumaysaa, maalinta qiyaama rumaysaa, malaa'igta rumaysaa, kutubta rumaysaa. maxay ahaato sadaqa aad bixisaa, maxay rususha aad rumaysaa, sadaqa aad bixisaa, dad badan aad quudisaa oo masaakiintii iyo dadkii fuqarada ahaa iyo waxaas oo dhan ay ka mid yihiin, iyo waalidkii wax walba. maxay ahaato salaada aad tukataa, zakada aad bixisaa. maxay ahaato aad ballantana oofisaa markaad ballan qaado. idan qofka aan ballanta aqooninu taqi ma ahan. qofaa ballan u qaaday, berriyaan waxaa samaynayaa, ma samaynin, maya, taqwa ma jirto. marka qofka aan samirka lahayn taqi maahan. markaad doonayso inaad noqoto taqi, inaad noqoto waa in calaamadahaas laga helaa. meeshaas ku yaalla suura baqara ku yaalla. waxaa kusoo haray ixsaan. ixsaankan ugu weyn waxa weeyaan
an tacbud allaha kaannaka fain lam takun taraahu fainahu yaraak xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam ka labaadna waxa weeyaan waqadaa rabuka an laa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaanan waalidka oo baari loo noqdo weeyaan ixsaanna waxa weeyaan acmaasha wanaagsan aan soo sheegnay hadda iyo kuwa soo socdaba inaad meesha ugu sarraysa gaarsiisaa ama waxaa la yidhahdaa ixsaan la yidhaahdaa ixsaan waa darajada ugu sarraysa ood shay wanaaji karta weeyaan marka haddaad taqi tahay waa inaad taqigaaga sii qurxidaa haddaad maxay ahato salaad tukanayso waa inaad salaadada qurxidaa haddaad sadaqa bixinayso waa inaad sadaqada sii qurxidaa ixsaanaa la yidhahdaa marka waalidka baariyaan u nahay laakiin waa in baarinimada sii kordhiyaa ixsaanaa la yidhahdaa qisdi meesha maba noogu jira horta baabkaas maba noogu jira qisdi haddaan ummadda islaamka nahay maba noogu jira maba naqaan qisdi waxa la yidhahdaa qisdiguna waa arrin sida salaadu waajib kugu tahay kugu yahay qisdigu waajib inaad qisdi samayso cadaalad darraad ka fogaato aad ka fogaato qisdigana caadiyan waa dhexdhexaad weeyaan cadliga iyo qisdiga waa kala duwan yihiin wax yar cadligu ilaahay unbaa caadil noqon kara subxaanahu jalla wacala cadligu waa 100% waay laakiin qisdigu waa inaad dhexdhexaad noqotaa oodan dhinacna xano xagga aadan u cararin xaggan aadan u cararin qabyaalad iyo balaayo aadan la imaanayo wax xun wax iska daba gurijin wax noocaasa cadaalad darro weyn aadan samaynin waay marka qisdigu waxa weeyaan qayb ka mid ah aas-aaska risaaladii rasuulullahi maxamed weyn sala allahu calayhi wasalam toobo sabir iyo maxay ahaato ii sheegeen dahaaro ayagana waa naqaanaa kuwaas ma dhib badna maxay ahaato in muranka la iska ilaashado markaas dhinaca kaleeta kusoo haray dhinaca kale qaybta kale kusoo qaada doona haddii ilahay yidhahdo la soco